بسم الله الرحمن الرحيم وردك دقا قرحوغان ayaa goordhow waxa uu ka dhacay meel u dhow nawaaxiga xaawataaka ee magaalada Muqdisho. Dhawaaqa qaraxa ayaa laga maqlayay guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo haatan la maqlayay rasaas ay ridayaan ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa ka dhacay baar kaartaroon oo ciidanka xooggu ku baaranayeen gaadiid u dhow nawaaxiga madaxafka qaranka. ilaa iyo hadda lama oga halka rasmiga ah ee la bartilmaameedsanayay. wixii ka soo kordhan waad la soo socodsiin doonaa. fadlan subscribe si like na saar.